shan xaaladood oo laga yaabo ku soo dhamaado duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. In ka badan 100 maalmood ayaa laga joogaa kolkii Ruushka uu duulaan ku ekeeyay dalka ay dariska yihiin ee Ukraine, waxaana la saadaalinayaa in Ruushku uu dib la wareegi karo Ukraine. Dib u gurashada ciidanka Ruushka iyo iska caabinta ciidanka Ukraine ayaa ka socda bariga dalka. haddaba iyadoo halka la kala marayo ayaa khubarada amniga faaleeya waxay tibaaxayaan 5 arrimood oo macquul ah inuu ku soo dhamaan doono mustaqbalka dagaalka Ukraine. waa tan koowaad dagaalka oo daba dheeraada oo socon kara bilo ama sanado, maadaama ciidanka labada dhinac isku dayayo inuu daaliyo midba midka kale. hadda mid kasta wuxuu helaa guul iyo khasaaro, umana muuqdaan midkoodna inuu soo dhiibo waqti dhow. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu samaynayaa inuu ciyaaro istiraatiijiyadda samirka si uu u daaliyo dalalka reer galbeedka ee caawinaya Ukraine, iyagoo kadibna diiradda u weeciyo wax ka qabashada mushkiladaha dhaqaale iyo cadaadiska reer galbeedka uga imaanaya Shiinaha. si kastaba reer galbeedka weli waxay siinayaan Ukraine taageero military inkasta oo dagaalku uu muuqdo mid muddo dheer sii jiitami kara. Mike Ryan oo ah jenaraal howlgab ah una dhashay Australia ayaa sheegay inaysan jirin cid si dhaqso ah ku gaari karta guul waqti dhow. 2 waa in Putin uu ku dhawaaqa xabad joojin. ka waran haddii madaxweyne Putin uu dunida kaga yaabsado isagoo ku dhawaaqa xabad joojin hal dhinaca, wuxuu qabsaday dhul badan wuxuuna sheegan karaa inuu guul ka gaaray dagaalka Ukraine. wuxuu sheegan karaa inuu soo gabagabeeyay howlgalkii military ee ciidankiisu ay ku taageereen gooni-goosadkii ku sugnaa maxmiyadda Donbass, isla markaana sameeyo aag dhan oo ku tirsan gacanka Crimea, kadibna kor u qaado niyadda ciidanka dhulka jooga oo cadaadis ku saaro Ukraine si ay dagaalka u joojiso. tani waa dhagar kale oo Ruushku adeegsan karo xilli kasta haddii uu rabo inuu cadaadis dhaqaale ku saaro dalalka Yurub, kadibna Ukraine ku khasbay inay dhulkeeda qayb ka mid ah ka tanaasusho si ay nabad maangal ah u hesho. sidaas waxaa qaba Kay Gailis oo arrimaha Ruushka khabiir ku ah oo ka tirsan xarunta cilmi baadhista Chatham House oo ku taala dalka Ingiriiska. sidoo kale madaxweyne Putin wuxuu ku khamaarayaa in dalalka reer galbeedku ku dhibtoodaan xaaladda Ukraine kadibna u jeestaan wax ka qabashada arrimahooda dhaqaale. doodaasi durba waxay ka soo yeedhay magaalooyinka Paris, Berlin iyo Roma, waxayna leeyihiin looma baahna dagaal sii daba dheeraada. waxaa la joogaa xilligii wax laga qaban lahaa dhibaatada dhaqaale ee caalamka. aan isku dayno xabad joojin ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku doodayaan dalalkaasi, laakiin arrintaasi waxaa ka biyadiidan dalalka Yurubta bari, Mareykanka iyo UK waxayna aaminsan yihiin inay waajib tahay inuu guuldareysto duulaanka Ruushka ee Ukraine iyagoo la dhowrayo nidaamka caalamiga ah. sidaas darteed haddii Ruushku uu ku dhawaaqo xabad joojin iskiisa wuxuu bedelayaa jihada balse ma ahan dhamaadka dagaalka. 3 waa ismariwaaga goobta dagaalka. ka waran haddii Ukraine iyo Ruushka ay garwaaqsadaan inaysan midna gaadhin guul military, sidaas awgeedna go'aansadaan inay wada hadal siyaasadeed galaan. ciidankoodu waa ay daaleen, waxaa gabaabsi ah tirada askarta iyo hubka, dhiigga iyo dhaqaalaha dagaalka ku baxayna ma aha mid saamaxaya in la sii wadi karo dagaalka. qasaaraha ciidanka iyo dhaqaalaha ee Ruushku waa ay socdaan. dhanka kale Ukraine dadweynaheeda ayaa ku daalay dagaalka oo ma rabaan in naftooda halis ay u galiyaan dagaal aan guushiisa la hubin. dhammaan kuwani waa xaqiiqooyin ka jira labada dhinac. ka waran haddii hoggaanka Kyiv jooga uu sheego inuusan aamini karin taageerada reer galbeedka isla markaana go'aansado inuu la xaajoodo Ruushka, maadaama madaxweynaha Mareykanka uu si furan u qiray inuu qorshooda Ukraine ay ka mid tahay dhulka dalkaasi ka mid ah la siiyo Ruushka si dagaalka loo joojiyo. laakiin ismariwaaga goobta dagaalka ma ahan mid biro sii jiri kara oo la maqlo xal siyaasadeed, sababtana waa in Ukraine ay aad uga aamin baxday Ruushka. xalka nabadeed ma ahan mid dhib badan, waxaana laga yaabaa in dagaal kale weli sii dhiman yahay. 4 guul ay Ukraine gaarto. ma laga yaabaa in Ukraine si mucjiso leh ay ugu guulaysato dagaalka? Ukraine ma ku qasbi kartaa in ciidanka Ruushku ay dib ugu laabtaan halkii ay ka soo duulaan tageen? dhab ahaantii Ukraine waa ay ku guulaysatay dagaalka. sidaas waxaa muuqbaahiyaha laga leeyahay dalka horan u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Mareykanku wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in Ukraine uu u diro hub ay ka mid yihiin gantaalada ridada dhexe iyo kuwa meelaha fogfog beegsada oo loo yaqaan High Mobility Artillery Rocket System ama HIMARS. xaaladan ayaa u baahan in si qoto dheer ay ugu fikiraan siyaasiyiinta markii horeba ka walwal qabay cawaaqib xumada ka dhalan karta dagaalka. waana sababta inta badan dadku ay u aaminsan yihiin haddii madaxweyne Putin dareemo guuldarro military inuu adeegsan karo hubka kiimikada ama nukliyeerka wax baabi'iya. taariikhyahanka Neil Ferguson ayaa dhawaan ka sheegay kulan lagu qabtay jaamacadda King College ee magaalada London, waxay u muuqataa in Putin uusan ogolaan doonin inuu aqbalo guuldarro military isagoo haysta khiyaar ama fursad uu adeegsan karo
hubka nukliyeerka. 5 khiyaarka u dambeeya ee Ukraine ku dambeyn doono waa guul Ruushku ka gaadho arrintan. macquul ma tahay guusha Ruushka ee dagaalkan? saraakiil badan oo reer galbeed ayaa xoojinaya in Ruushku uu guuleysan karo. inkasta oo dib dhacyo uu kala kulmay dagaalkan Ruushka, haddana weli waxay qorsheynayaan inay qabsadaan caasimadda Kyiv oo uu hoos u dhigo inta badan awoodda ciidanka ee Ukraine. ujeedooyinka ugu sarreeya ayaa weli jira. mid ka mid ah saraakiisha ayaa sidaas yidhi: Ruushku wuxuu ka faa'iideysan karaa guulihii uu ka gaadhay gobolka Donbas isagoo xoreynaya ciidamada meelo kale loo isticmaalo laga yaabee inuu mar kale bartilmaameedsado Kyiv. miisaanka ballaaran ee tirooyinka Ruushka ayaa soo baxaya. ciidamada Ukrainiyaanka ayaa dhankooda sii daciifaya. madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa la kulmay ciidamada qaranka ee ku sugan gobolka bari ee Kyiv, halkaasi oo dagaalku ku sii xoogaystay. madaxweyne Zelensky ayaa hore u qireen 100 askari oo Ukrainian ah ay dhimanayaan halka 500 oo kalena ay dhaawacmaan maalin kasta. dadka reer Ukraine waa ay ku kala qaybsan yihiin dagaalka. qaar waxay rabaan inay dagaalamaan, halka kuwa kalena ay nabad raadinayaan. wadamada reer galbeedka qaar ayaa laga yaabaa inay daarinayaan taageerada Ukraine, laakiin haddii ay caddaato in Ruushku guuleysanayo, waxay u badan tahay inay niyadooda kor u qaadaan oo ay dagaalka ku biiraan. suxufiga James Landale oo qormadan diyaariyay waxa uu leeyahay: mid ka mid ah diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa si gaar ah igu sheegay in reer galbeedku ay hub nukliyeer ah ku tijaabin doonaan badda Pacific si ay digniin ugu noqoto Ruushka.